su-aasha kolena la weydiiyey ee ku saabsan markaa jaamacadda barwaaqo iyo dugsiga sare abaarso horta dugsigaas runtii waa dugsi ka mid a dugsiyada iliidka loo yaqaano ama dugsiyada runtii qiimaha weyn ku leh dalkeena iyagii markaa dugsiga kale sos oo runtii ardayda ka soo baxdaana markaa dalkana ay ka tilmaaman yihiin caalamkana markaa ay ka tilmaaman yihiin aqoonta intaa leg runtii waa aqoon markaa ay u baahan yihin muwaadiniinta reer somaliland ay bartaan inta anagu ognahay wasaaradda waxbarasho ahaan ma jirto cabasho rasmiya na soo gaadhay oo ka tilmaama waalid ama arday ama macallin dugsiga ama jaamacadda wax ka dhiga oo sheegaya markaa dhaqan xumo markaa dhaqankeena ka soo horjeeda ama diin la faafinayo ka soo horjeeda diinteenna anaguna runtii ma ogin laakiin bulshada waxaan ugu bushaareynaa kolley wasaaradaha qaranku waxay leeyihin markaa waxay kala leeyihiin markaa xilal kala duwan wasaaradda waxbarashadu waxay ka mas-uul tahay waxbarashada iyo goobaha waxbarashada wasaaradda diinta iyo waqaaftan horta diinta naga mas-uul tahay wasaaradda arrimaha gudahna amniga iyo arrimaha gudaha mas-uul noga tahay wasaarad kastaana runtii waxay leedahay markaa shaqo gaar ah shaqooyinka iyo markaa xeerarka uu dalku leeyahay iyadoo la waafaqayo qofka markaas sheega markaa war liduka ah markaa qaranka somaliland ama institution ka mid institutionada somaliland ama shaksi ka mid a muwaadiniinta reer somaliland ama cidaa reer somaliland ba u dhalan cidda wax ka sheega runtii isagaa caddeynteeda looga baahayay ugu horreyn horta cidda markaa shaqadeeda laana tallaabadeeda ka qaadi doonta oo markaa waxaa la marin doonaa markaa cidday khusayso laakiin si guud anagu bulshada reer somaliland waxaan u sheegaynaa sida diinteenu way noo sheegtay in jaakum faasiqun binabayin fatabayanuu an tusiibuu qawman bijahaalatin waxaan u baahanay markaa inuu qofku hadduu war maqlo ama ay dadku war maqlaan in la iska hubiyo diinteenna dad islaam baynu nahay dalkeenu waa dal markaa islaama dadkiisu 100% dastuurkeena qodobka koowaad waxa weya qodob kastoo shareecada ka hor imanaya qodobkiisa labaad waxa weye waa xukama jiraan taas markaa waxay sheegaysaa inuu bays u yahay wax kasta diinta islaamku diinta islaamkuna wax cid markaa ay cid kastaa difaacayso oo shaksi iyo dowlad iyo muwaadin kastaba markaa uu difaaciyo weyaan hadday jiraan markaa cid dembi ka gashay diinta annagu waxaan aaminsanay markaa dadka jooga ajanabiga ee dalka ka shaqeeya ee sharciga ku jooga iyo kuwa goobaha waxbarashada ka dhigaaba inay shuruucda dalka ku dhaqmaan heshiiskaasaa laga saxeexaa wasaaradda shaqogelintu markay siinayso ruqsadda xeerka dalkay saxeexaan inay ku dhaqmayaan ciddii xeerka dalka jebisa dee tallaabo sharciya dowladdu ka qaadaysa laakiin ma ahayn brobaganda iyo in la fidiyo markaa wax dalka amnigiisa khalkhal gelinaya iyo dadka waxbarashadooda shaki gelinaya waxaan u baahanay markaa dadkeena la jooga ajanabiga ee dalkeena ka shaqeynaya ee ruqsadda ku jooga ee sharciga ku jooga dowladdu sharciga siisay in la soo dhoweeyo qaxootiga in la soo dhoweeyo in loola dhaqmo markaasi shuruucda dalku ay dhigayso iminka dalka kenyan ka nimiya ardayda markaanu la sheekaysanay waxaa jirta arday reer somaliland oo ku dhalatay kenya wax ku barata waxaanu ka wada sheekaysanay markaa dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose markay dhiganayaan ba in la bara diimo kale waxay noo sheegeen markaa diimuhu inaanay khasabayn dalka ay joogaan waa dal diimo kala duwan leh laakiin hadda ardayga islaamka ee muslimka ee kenya jooga laguma khasbo inuu kristanka barto seebay u dhici kartaa markaa arday somaliland jooga oo waddan 100% islaam oo laga ogoleynba diin kale lagu barto seebay u dhici kartaa ma in diin kale la baro ama lagu faafiyo runtii waa war caqliga markaa ka soo horjeeda dalkeena runtii waa dal islaam ah diinteennana waynu difaacaynaa qarannimadeedana waynu difaacaynaa waxbarashadeena tayalan waynu difaacaynaa 80 sano ka hor sanoo kale markaa somaliland ka dhacday 1940 markii waxbarashada maadiga markaa dalkeena laga hirgelinayey macallinkii weynaa ee aabihii aqoonta maxamuud axmed cali iyo intii la midkayd ee calanka u sideen dad fara badan baa ka hor yimi dadku waa gaalaynaysan maanta iskuuladii berigaa loogu talagalay in laga furo markaa dalkeena wadamo kaleo markaa geeska africa baa la geeyey oo inagu maanta aqooni doonno marka oo dadkeenu u doontaan marka waxbarasho halkii innaga markaa ay haleed imika inoo soo doontaan marka diintana waynu baraynaa cilmiga maadiga waynu baraynaa labaduba markaa waxay noo sheegay markaa diinteenna
laakiin nebigu lahaa idlab alcilma wala bisin China u doonta buu nebigu lahaa markaa berigaa China dee waddan gaala weyn ilaa berigaana gaale ahayn markaa wuxuu lahaa cilmi u doonta haddii cilmigu ay isku kalifaysa inaad China ka doonataan doontuu lahaa markaa qofku hadduu gurigiisa cilmi ku helo ama gaal ha u dhiga ama islaam ha u dhige waa inuu barto laakiin lagama aqbalayo markaa cid dhaqan kale ama diin kale faafinaysa dalkeena wax ka dhigan aad iyo aad baan salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.